kulankan waxaa mid lagu soo bandhigay waxqabadka dowladda hoose sanadkii 2024 ayaa lagu qabtay dowladda hoose degmada Laascaanood waxaana kulankan balaaran soo qaban qaabiyay maamulka dowladda hoose Laascaanood waxaana ka soo qayb galay oo goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka dowladda hoose shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala dowladda hoose marti sharaf qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Laascaanood ujeedka kulankan ayaana ahaa in bulshada la tuso waxyaabihii u qabsoomay dowladda hoose Laascaanood sanadkii 2024 xilli marxalada iyo duruufaha adag oo sugan ay ku soo shaqeeyeen maamulka dowladda hoose oo hormuud u yahay maayarka Cabdiraxiim Cali Ismaaciil intii kulanka uu socday waxaa la soo bandhigay waxyaabihii ugu muhiimsan ee uu hirgelay maamulka dowladda hoose iyagoo maqal iyo muuqaalba u soo bandhigay ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayarka dowladda hoose Cabdiraxiim Cali Ismaaciil isagoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay wixii ay qabteen caqabadihii la soo gudboonaaday iyo waxa ay ka gaabiyeen 2024 wixii dakhli iyo cashuur soo galay dowladda hoose ee gacanta maamulka soo galay iyo inaanu idin soo gudbino wixii idinku baaqday ee jeebabkiina ku baaqdeen saddex inaanu idin soo gudbino waxa baaqday sababta ay u baaqdeen iyo mashaariicda iyo wixii lagu qaban lahaa ay la baaqdeen afar inaan idin soo gudbino qorshaha sanadkan 2025 aanu qorshaynay in wax laga qabto ee horumar leh ee wadooyin leh ee nabadgelyo leh ee aanu qorshaynay sanadkan 2025 in maamulka degmadu uu qabto shan inaanu bulshada u sheegno waxa sanadkan 2025 aanu ka rabno 2024 waxba inoo qabsoomay waxba inaga qabyoobay 2025 waxbaanu qorshaynay inaanu qabanayno haddaba inaanu sheegno sanadkan waxa la idinka rabo bulshada aanu u sheegno lix inaanu go'aaminay golaha deegaanku in aanu dhisno guddi la yiraahdo guddiga horumarinta caasimadda oo shaqadii aan lagu halayn bulshadii ayaan ku halayn maamulkii degmada kaliya la dhiso guddi ka socota bulshada oo iyagu u madax bannaan la tashiga iyo qorshayaasha degsan marka laga tago ayaanu dejinay say wax u maamulayaan u madax bannaan inaanu dhisno oo ah waxa goboladu ku kala hormareen ama caasimadu ku hormareen oo bulshadii ay ka dhex muuqato shaqadii inaanu idinku wargelino inaanu go'aaminay golaha deegaanku iyo maamulka caasimada inaanu dhisayno guddiga waxaana hadalka ugu dambeeyay xogayaha dowladda hoose ee Boos Dibad Boos oo isna ka sheekiyay sida loo qabtay shaqooyinka wadooyinka cashuuraha guryaha intaan caawa joogno horeyna muuqaalka waxaad uga daawateen iyadoo burbursan ama iyadoo qaab kala marka sanadkii 2024 waxay noo hirgalay in la dayactiro la dhiso la qalabeeyo la qurxiyo xaruntan dowladda hoose waxaa qayb dhismaha naga caawisay oo iyadana xisi doonaa shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom oo noo dhistay xafiisyada qaar dhismayaashooda waxaa ku xiga dhismaha wadada dhakhtarka wadadii laga soo jeeyay dhagaxdhigeedii iyo xadhigjarkeediiba waxaa kaloo noo qabsoomay inaan hirgelino nidaamka JS-ka waxaa kaloo oo iyadana noo qabsoomay hagaajinta wadooyinkaas oo iskugu jiray wadooyin xidhnaa wadooyin markaa dhismayaal ay ka dhisnaayeen oo xidhnaa dhammaantood wadooyin dhagxan ku xidhnaayeen wadooyin togog ahaa oo dib loo hagaajiyay iyo wadooyin laamiya iyo qayb ka mid ah la hagaajiyay maamul daadejinta waaxyaha oo iyadana aan soo aragnay dhisidii waaxyaha iyo gudiyadii loo sameeyay xaydaamka xarunta agoomaha oo ah xaruntan Kuweydiga oo shaqo badan laga qabtay oo ahayd meel furan oo ku habsadayaasha
ama dadka dhulka ku habsaday dulaan ballaaran ku soo qaadeen isla baaxad dheer ka bacdi waxaan ku guuleysanay inaan halkaa xaydaamno ay noqoto meel ka caagan in dadku soo dhex galo. Taas wixii ka dambeeyay waxaa mikrofoonka la wareegay martii sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadan oo lagu soo bandhigayay waxyaabaha maamulka dowladda hoose ay ka soo qabteen sanadkii tagay 2024. Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waan garanayaa kacaankii runtii aad baan ugu faraxsan oo dhismaha kii Ingiriisku ka tagay qudhu ahaan jiray maanta meeshay marinayaan inay maaragtay ay sidaa u qurxiyaan xitaa gudihii iyo banaankeedaba runtii waa arrin aad u farax badan. waxaan kale oo isleeyahay shaqada dowladda hoose ka socota marka dadku ay arkaan waxay u malaynaysaa inaan cidiba maqnayn magaaladaba shaqadeedii halkan ay ka wada socoto runtii casharkii halkaa yiilay 2 qodob 3 qodob baan ka soo qaadanayaa in buug in laga sameeyo dadka canshuur bixiyaasha loo qaybiyo oo la tuso qof walba meesha uu kaga aadan yahay in loo sameeyo horta marka u horeeya oo aysan noqonin kaliya casharka dowladda hoose inta soo jeediso inay faylkooda gasho ama meesha ay taalo waa qodob waa codsanaya taa qodobka labaad waxaan oran lahaa horta canshuurta iyo waxa ay tahay maxay tahay canshuurta waxaa aad iyo aad hoosta uga xariiqayaa canshuur waxaa loogu talagalaa dowladaha hoose inay iyagu qaadaan oo waliba gacan lagu siiyo laakiin waxaa mucjiso ah dowladdii hoose oo hay-adihii kale ee wasaaradihii iyo cusbitaaladii iyo xabsiyadii iyo meelihii dowladdu ayadu wax siinaysa waa wax canshuuraha marka dib loo raaco aan la arkin weeye wax aad iyo aad macno badan u leh laga hadlayo beerihii iyo wasaaradii beeraha iyo maaragtay cashuurihii ku baaqday bal waxaan leenahay kolley dad badan oo beeralayna way joogaan waxaan leenahay warbalbalka ka baxdaa bakay la qaleen haddii sanadkii la soo dhaafay inagu baaqatay haddaynu bahda beeralaya yeysan inagu baaqanin sanadkan lagu guda jiray cusub ama hadda bilowday waa in wixiina loo ka baahnaa in laga helaa annaguna waxaanu ka shaqeynaynaa sidii maaragtay aysan ugu baaqan lahayn sanadkan iyo sanadka dambe toona aynu leenahayna ka soo baxno ka guddi ahaan sidaa daraaddeed wax badan oo inta maanta la qabtay 2 jibaarkeeda iyo 3 jibaarkeeda ayaa cashuurtaasi inoo qaban doontaa haddayna cashuurta bixinna wax badan inoo qabsoomi maayaan waxa weeye waa muddo kooban runtii iyo shaqo aad iyo aad u badan waa uga mahad celinaynaa mas'uuliyiinta shaqadaas ka shaqeeyay iyo hawsha ay qabteen qodobka labaadna wuxuu ahaa xisaab celin oo runtii iyaduna sidii laga wada sanqarinayay ah arrin qaliil ku ah Soomaaliya iska daayay Afrika oo dhan ay ka dhacdo oo waliba dawlad hoose ay xisaab celin noocaas samayso xisaab celintana waan uga wada celinaynaa maayarka iyo xubnihiisa oo dhan sida kalsoonida leh ee ay u soo bandhigeen xisaab celintoodii qodobka saddexaad wuxuu ahaa qorshe soo socda oo ah qorshaha sanadkan 2025 marka cashuurtii markii aan eegna xisaabihi caawa laynoo soo bandhigay waxaa baaqatay lacag gaadhaysa 1,400,000 marka laga reebo saan filayo lacag 46 meelahaas ah oo ku qornayd hay'adaha caalamiga ah oo laga yaabo inaysan iman inta kale waxay ahayd lacag ku baaqatay bulshada ACC ee khaasatan reer Laascaanood marka taas waxay ku tusinaysaa in ay nagu baaqatay lacag fara badan oo wax qabadkeeda caawa aynu halkan u joogi lahayn hadday inoo soo xiroon lahayd marka waxa ugu muhiimsan oo maanta caawa ka hadalkeeda u baahan waxa weeye waad arkaysaan wixii aan bixinay wixii naloogu qabtay wixii aan bixi waayeen oo la qaban waayeen waxay ka dhigan tahay xagga ayaga ay ku baaqdeen haddaan nahay shacabka iyo haddaan nahay dadkii deganaa degmada marka waxa loo baahan yahay isku tashi bulsho